inta badan igu xiran ay soo weydiiyay tukaaga maxaa ku dhacay intuu ka baxay ma la jabsaday ma adaa xirtay su'aalo noocaas horta maanta waqti aan youtube-kayga aniga xiran ma joogo sababtuna waxay tahay dad badan oo ku farxaya jira maqnaashihiisa marka anigana waxaad igu taqaaniin inaan ahay qof strong ah badan oo ku wareersan akoonka Marish Beauty wax ku Marish Beauty hawada ka baxay ama hawada laga saaray adduunka waxa ugu xun ruuxa bini'aadanka ah qalbiga inuu ka qurmo ama qalbiga uu xaasidka yahay. Assalaamu calaykum galab wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin waa walaalkiin Maxamed Buskut fadlan like iyo subscribe to dhadhac channelkeena waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho channelkii Marish Beauty oo 420 kun ku xirnaa hawada ka baxay oo dad badani qof si uu soo falceliyay Marish oo dambe ka soo hadashay oo sheegtay cid channelkeeda hawada ka saartay iyo xilligu ka baxay dad badan baa waxay dhahayeen ayada xirtay oo markii lagu kacay xoogaa oo followgiis lagala laabanayay subscribe lagala laabanayay xirtay hawada ka saartay Marish ayaa soo hadashay oo sheegtay inay ayada aysan jabinin ayada aysan xirin oo channelkii dad cadow ay heleen ay ka xireen Marish muuqaal yar soo oo kooban TikTok soo dhigtay idin wadaagaya oo waliba ay leedahay anigu gaarjadan shalay u qabay YouTube maanta uma qabo wadan fursad baa tagay daawada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga oo idin salaameel baa joogtaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta YouTube-kayga oo la isoo weydiinayay oo asxaabta inta badan igu xiran ay isoo weydiinayay tukaaga maxaa ku dhacay intuu ka baxay ma la jabsaday ma adaa xirtay su'aalo noocaas horta maanta waqti aan youtube-kayga aniga xiran ma joogo sababtuna waxay tahay dad badan oo ku farxaya jira maqnaashihiisa marka anigana waxaad igu taqaaniin inaan ahay qof strong ah oo aan dadkana u jabin alxamdulillah ilaah ayaa mahad iskale shalayna aniga ayaa haystay oo gacanteeda ku sameeyay oo ku kasbaday 420 kun oo qof sidaad ku maqasheen muuqaalkaas kooban oo TikTok ay soo dhigtay ay ku cadaysay in ayada aysan xirin hebela xirin aysan dhihin dad badan ay ku eedeynayeen qurux ku dhigla jack inuu hawada ka saaray hadama ayadii asaga xoogaa isku dhaceen asagana uu soo hadlay muuqaalku uu leeyahay wax shaqo ku leeyahay ma jirto cidii walaasheena ka xirtayna aad baan ugu xumay Marish waxay tiri channelka hadii sidii lagu jabsaday oo sidii hawada looga saaray oo la delete gareeyay oo ku kasbaday 420 kun oo qof maantana hadduu soo noqdo alxamdulillah hadduu soo noqon waayane aniga waa joogaa mana teginin waana noolahay waana faraxsanahay baahidii shalay aan u qabay youtube-kana maanta uma qabo oo de waxaan haystaa wadan fursad lan jooga wax ka qabsan karo runta markii laga hadlo marka asxaabta qaaliga insha Allah waxaan rajeynaa inuu noo soo noqdo sida anigana ku faraxsanahay adinkana aad ku faraxsantihiin qurux ku dhigay asagana maadaama lagu eedeynay inay gabadh aad isugu dhow yihiin channelka ay isla shaqeyn jireen oo habeen dhaweyd si xun isu qabteen oo muuqaalay isu soo duubeen inkastoo la Israa'iil gareeyay asagan dad badan ay ku eedeeyeen inuu asaga ku lug lahaa in uu channelka hawada ka saaray asagoo qiiraysan qurux ku dhigay hadalkiisa uma baahnaba in muusiga calaacal wax la saaro asaab iska wataba calaacal la jaraale qurux ku dhigay ka soo hadlay asagana wuxuu yiri aniga shaqo kuma lihi dad badan waxay rabaan sheegayeen laakiin gabadhaas meesha ka bariisaysay ee ka shaqaysanaysa in laga xiro walaashay aad baan ugu xumahay qurux ku dhigay si qurux badan oo sharaf leh uga hadlay saakana muuqaal waa ku sheegay waxa soo kale kama suurtooban gabar walaashiisa inuu channelkeeda hawada ka saaro channelku waxa hawada ka saari kara qof password-kaaga hayo qof gmail-kaaga hayo ama qof telefoonka koodka ugu soo dhacay hayo bas qurux ku dhigay asagana fale tafadal ila daawada waxa uu ka yiri wareersan akoonka Marish Beauty wax ku Marish Beauty hawada ka baxay ama hawada laga saaray adduunka waxa ugu xun ruuxa bini'aadanka ah qalbiga inuu ka qurmo ama qalbiga uu xaasidka yahay qof walaalkaada ama walaashaada akoonkeeda inaad hawada ka saarto ama hawada aad ka bixiso waa wax laga fiican yahay qurux dhigla ayaa barnaankaas iska dhigay in uu asaga hawada ka saaray walaalkeen waana filaynay inuu sidaas oo kale oo sameynayo oo asaga shaqo ku leeyahay oo ka damqaday Marish waxay kaloo sheegtay anigu Canada jooga gaajada shalay aan u qabay YouTube markaan Afrika joogay aan biilanay maanta ma joogo sidii ku baxo
wadan opportunity land baan joogaa oo waa shaqaysanaya xoolaha xataa waa la qalaa liir meesha gabdhaha xataa waa mid walba midideeda waxay la egtaa canug garabka ay sugantahay xoolaha la qalaa xoolahayga baan qashaytin aniga uma dhutinayo shalayba tiktok waa laga xiray waana soo laabtay maantana waxay tiri anigii haddii youtube-ka ilaheer aniga ima xirin dadka subscribe-gaysaana waa joogaan taasina waa sax maariish waxaan rajaynayaa qofka ku hel oo cadowga ah inuu ilaahay uu ka qabto maariish welcome back janalkaaga u shaqaynayo cirkaas ku jiro ayaan arki doonaa haddii sidaas ku baxana mid kala furo dadkii waa joogaan subscribe-tii waa saarayaan beri anaga ku jiro 4 bil ka hore ayaad markii kayga hore hawada u ka baxayay asagoo waliba intaan in ka badan follow haysta maantana inaan intii ku soo celiyay waxay ugu qaadatay less than 5 months so wax weyn ma ahan follow iyo subscribe muhiimadu waxa weeye shakhsiga nool alxamdulillah waa noolahay waxaan rajaynayaa youtube-kan inuu noo soo laabto maalmaha soo socdo وانا مهسنت aniga channel la xira adduunka uu necbay channel la xira adduunka uu necbay qof channel laga xirayna wallahi waa la murugooda 400 oo kun ku xiran iska daa channel ay 10 kun ku xiran taxta hadii la xiro waa kurbood aniga waxaan la soo maran ogahay dhibkan la soo maran ogahay rafaadkan la soo maran soo jabadaysid wax walba u soo dhafartido u soo adoo daalan adoo madax ku xanuunay soo shaqaysid haduu ka xirmo hadii iko hadana war subscribe saar war qofta hal garab qabto hebel oo ii share garay waa dhib badan yahay ilaahay u soo celiyo laakiin dadka jabsanaya ma aqaan dad badan waxay dhaayeen ayada xirti waayo fiidiyoyada hore soo gelisay gaar ahaan kii raali gareed markii lagu dhufto private u sheegay this video is private ilaah waa og wixii jiro ilaah waa og kulay waa arki doonaa wuuna soo laaban doonaa waxaan leeyahay welcome back my sister stay strong anaga daana youtuber family nahay garabkaaga nahay haddana kanada joogtaa ciidan u baahan ma jirto sanka walaalkaada ama walaashaada akoonkeeda inaad hawada ka saarto ama hawada aad ka bixiso waa wax laga fiican yahay nabarkii walaalkaada ku dhufatayna gumadkiisa asagoo ku yaalaa adigu aniga channel la xira adduunka uu necbay channel la xira adduunka uu necbay qof channel laga xirayna wallahi waa la murugooda 400 oo kun ku xiran iska daa channel ay 10 kun ku xiran taxta hadii la xiro waa kurbood aniga waxaan la soo maran ogahay dhibkan la soo maran ogahay rafaadkan la soo maran soo jabadaysid wax walba u soo dhafartido u soo adoo daalan adoo madax ku xanuunay soo shaqaysid haduu ka xirmo hadii iko hadana war subscribe saar war qofta hal garab qabto hebel oo ii share garay waa dhib badan yahay ilaahay u soo celiyo laakiin dadka jabsanaya ma aqaan dad badan waxay dhaayeen ayada xirti waayo fiidiyoyada hore soo gelisay gaar ahaan kii raali gareed markii lagu dhufto private u sheegay this video is private ilaah waa og wixii jiro ilaah waa og kulay waa arki doonaa wuuna soo laaban doonaa waxaan leeyahay welcome back my sister stay strong anaga daana youtuber family nahay garabkaaga nahay haddana kanada joogtaa ciidan u baahan ma jirto sanka